كسو قيب قلياش ودن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب ورنتي دكتوركي أيان نودمي هذل هل كان كسو جيديي بلو ايكونوميغا si fiican ugu sharxay iyo fursadaha dalka Soomaaliya yaala maalgashi runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa wasaaradda soo diyaarisay hawshan iyo dadka khubarada ee halkan ka soo jeediyay presentationka waa runtii field nagu cusub waana markii koowaad sida la sheegay oo shir noocaan ah oo maalgashi uu dhaco waxa weeye numberkii xitaa xeebaha numberkii costigeena intuu la egyahay xitaa xoogaa baan iska cunnay number dhowr boqol kilomitir ayuu doctorku noo sax 600 kilomitir ku dhawaad maanta waxaan lahaa Soomaaliya way ka faa'iideysanaysaa badda mar haddii Tarey Cabdullaahi Tarey loo oo nin ogaadeena loo magacaabay hawshan nin reer mudug ah oo doctorku u dambeeyayna hadda uu noo sharaxaya kalluunkii that's the transformation ka Soomaaliya meeshii aad halkaas waaye geeli waa ka nimid loodi waa ka nimid beerihi waa ka nimid waxaan u soconaa halkaas iyo badii baan aadnay waxaan rajaynaynaa dawladaha iyo saaxiibada nala jooga iyo ganacsatada Soomaalida in baddaas weyn aan ka faa'iideysano si dhaqaalaheena iyo nolosha dadkeena oo runtii in badan oo kamid ah nolol yari iyo xaalad adag ay la soo daristay inaan ka faa'iideysano khayraadkaas runtii waxa weeye mana la cuno dadkeena xitaa hadda magaalada Muqdisho jooga si fiican xitaa malayga looma cuno marka guud ahaan waxaan leenahay annaguna aan cunno xoolaha aan joojino dabeecaduna waa noo hagaagaysaa waxa dabeecadeena way adkaatay waxa la yiraahdaa hilibka guduudan oo aadka loo cuno waaye hilibka cadna aan basanno ana ka faa'iideysano waana maasantiin